madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada Galmudug xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay xubnaha wafuudda la socota madaxda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo barwooyin sharaf weyn ayay noo tahay aniga dowladda iyo shacabka Galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya shirkani wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dowladda Galmudug waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hogaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogashan inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinnii iyo howlmaalmeedkiinnii haddana waxaad u timaadeen gogasha Galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dowladnimada Soomaaliyeed walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay'adaha dastuuriga ah mudanayaal iyo marwooyin ujeeddada gogosha Galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah taas macnaheedu ma ahan in ay taladu innaga inagu kooban tahay sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanasul is-oggolaasho talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla mudanayaal iyo marwooyin dalkeennu wuxuu soo maray geedi socod dib u heshiisiineed oo dheer markii ugu horraysay wuxuu midho dhalay sannadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Jabuuti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyay dhinaca
dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaaliyiinta dalka. muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faantay ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar. doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. mudanayaal iyo marwooyin, xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taalla gaar ahaan caasimadda. waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo. walaalaha Soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa in ujeeddada gogoshani ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale xal ka ahaato dhammaan howlaha taagan ee u baahan maaraynta. mar kale waxaan idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dawladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshaweynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya. mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharafta waa u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca dawladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug. waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin, soo dhowaada, ku soo dhowaada deegaankiinni iyo dalkiinnii, ku soo dhowaada taladiinnii oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wada jir ah, is-afgarad iyo heshiis loo aayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor waad ku mahadsantahay inaad shirka noo furtay dad mikrofoonka iska damisana madaxweyne ku-xigeenka galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka galmudug, gudoomiye ku-xigeenkiisa oo aan markii hore xusin oo goobjoog ah, iyo dhammaan marti sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama shirka noo furmay inaanu istaagno astaanta qaranka oo calanka Soomaaliya ah, kadibna ay khudbaduhu isugu sii keen xigaan oo ay noo socdaan. aad maasantihiin. khudbadda noo xigta waa madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, oo aan ku soo dhaweynayo mikrofoonka.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها دولة قلمدق مدن أحمد عبدي كاري قورقور، مدحوينها دولة كونفور قلبيد مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقران، مدحوينها دولة جبلان أحمد محمد إسلام، مدحوينها دولة هيرشابيل مدن محمد عبدي واري، قدوميها بارلمانكا قلمدق كحجيناديسا مدحوينه كحجينكا دولة قلمدق، قدوميها بارلمانكا كحجيناديسا وفود قولياشا kala duwan ee labada gole aqalka sare iyo aqalka hoose ee dawladda federaalka ah, wufuudda la socotay madaxweynayaasha ee heerarka kala duwan leh, bulshada rayidka ah, dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo magaalada Dhuusamareeb madaxdeeda, dhammaantiin waa salaamantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka ugu horeysa madaxweynaha dawladda galmudug, xukuumaddiisa iyo golayaashiisa, shacabka reer galmudug dhammaantood uga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay noogu soo dhoweeyeen magaalo madaxda galmudug ee Dhuusamareeb, oo runtii aan uga mahadcelinayna dadaalka wakhtiga kooban ee go'aanka in shirkan uu qabsoomo lagu qaatay iyo sida habsamida leh ee howlihii baaxadda lahaa ee horyaallay ay u maareeyeen. waxaan leeyahay madaxweyne, adiga iyo xukuumaddaada iyo golayaashaada iyo shacabka reer galmudugba aad baad u mahadsantihiin. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo wufuuddii la socday in ay ajiibaan kulankan iyo gogashan, sidoo kaleetana wakhtigii loogu talagalay shirka ay ku yimaadaan iyaga oo howlo badan ay hor yaaleen, kana hormariyey oo hortabinta ka siiyey hawshan maanta galmudug loo fadhiyo oo ku soo beegantay xilli ku habboon. xaqiiqda waxaa ka warramay madaxweynaha macnaha shirkan uu ku fadhiyo, ujeeddadiisa ugu weynna uu yahay in wadatashi ay sameeyaan dowladaha xubnaha ka ah sida dastuurka uu farayo, iyaga oo ka tashanaya sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen waajibka guud ee ka saaran horumarka iyo dibudhiska dalka Soomaaliya. ninna kama qarsoona marxaladihii la soo maray, qof walbana wuu la socdaa marxaladda maanta aan marayno. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaynaa meesha dadka Soomaaliyeed maanta ay gaareen. waxaa daliil u ah dhismihii iyo wakhtigii la soo baxshay iyo horumarkii dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed ee muddada uu maalgelinayay. waxaa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhinno, maamuuska iyo sharafta iyo sida loo hagay ayaa waxay ku filan tahay dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin, bisayl fiican ay u qabaan inay dalkooda maamushaan, kuna filan yihiin. magaaladan oon ognahay in magaalo muddo badan khilaafaad siyaasadeedu ka jiray, kala aragti duwanaan ay ka jirtay, ay tahay magaalooyinka marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya xagga dawlad dhiska ugu dambeysay. haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha guryaha dhismuhu waa dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan howlaha guud ee qaranka ummaddan dhisantay. waxaan ugu mahadcelinayaa hogaaminta madaxweyne Axmed iyo siyaasiyiinta la garab istaagay inay marxaladdan cusub ay gacmaha isqabsadaan. waxaan si gaara galmudug ugu mahadcelinayaa dadaalka ay u galeen inay tooda xalliyaan, dariskooda oo Puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan, gogashii qarankana ay dhigaan. intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo.
furitaankii shirka madaxweynaha ku filnaa annaga waxaan cabiraynaa keliya sidaan raalliga uga nahay in aan shirkan ka soo qayb galno oo taladiisa aan wax ka lahayn oo maanta aan u fadhinno oo aan ka rajaynayno inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku diirsadaan oo walwalka ka hayay mustaqbalka dhinaca doorashada ee laga gudbo dabcan walwalkaas mararka qaarkood wuxuu ka imaanayaa xaaladaha la jecel yahay iyo duruufta lagu jiro dabcan dalku muddo badan wuxuu ku taamayay in uu ka baxo nidaamka doorasho ee muddada 20 sano aan ku soo dhaqmeynay oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo qof iyo cod ah waana waxa qof kasta oo Soomaaliya uu tiigsanayo laakiin waxa la rabaa markii tiigsigaas waqtigu soo dhawaado ay u muuqato in la xaqiijin waayo talaa la rabaa in la isugu noqdo oo hadda wixii markaa laga badin waayo la qaato si meeshii la jooga aan dib looga dhicin nidaamka doorashooyinka kale ee qof iyo codka ahayn naftarkeedu waa tan maanta halkaana soo gaarsiisay oo 20 sano aan ku soo dhaqmeynay wixii wanaagsanaa ama adduunku uu yaqaan ma aha laakiin waa waxna la eg oo marxaladaha aan uga gudbayno oo aan hadda aan ku jirno waxaan u baahannahay marka dadka oo Soomaaliyeed oo dhan madax iyo shacabba inay mar walba ay qiraan duruufta la marayo oo xalka munaasabka ku ah ay isla rogrogaan oo meesha dadka u badan yahay gacmaha la isku qabsado dabcan waxa laga shaqeynaa waa siyaasad kala aragti duwanaan baa imaanaysa waxa imaanaya masaalix kale oo arrimo siyaasi ah ka dhalan kara laakiin waxaas oo dhan waxa ka weyn maslaxadda dalka midnimadiisa horumarkiisa nidaamka federaaliga aan qabsanay waa nidaamka maanta kalifay inaan dhuusamareeb ku shirno dawladaha kobcaya ee xubnaha ka dawladda federaalku waa masaalix iyo adeeg u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto magaaladan waxaan ku nool oo maanta wada jooga dadkii Soomaaliyeed qof kama maqna magaalo kasta oo Soomaaliyeedna sidaas ay u diyaar garoobaysaa inay Soomaalidu oo dhan ay ku wada noolaadaan ka ganacsadaan martigeliso gacmaha la isku qabsado nidaamka federaaliga ma aha wax dadka kala geynaya nidaamka federaaligu ma aha wax dadka aan horumarkiisa wada jir loo qabsanayn waa shaqadii oo la kala qaybsaday hadday taasi jir lahayn maanta markaan Axmed Qoorqoor halka ugu nimaano hadda gacantaan ku dhigi lahayn oo shaqadaan la qabsan lahayn waxaan quruxda badan ma soo baxeen waayo wixii la isla wada maamulo foolxuma ka soo baxda marka waxaan rajaynayaa kala qaybsanaanta dawladaha ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waa wax iskabaya waa shaqooyin ay la isu qabanayo ugu dambeynna loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax loogu qabanayo waxaan ku faraxsanahay kaftanka aan ku daree meeshii federaalka lugta laga heen jiraa maanta fadhinaa marka waa horumar weyn oo la gaaray taasi waxay daliil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray annaguna waa aqbalnay waana ku taageeraynaa waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay waxaa qurux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray deegaanada Galmudug wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayn idaacadaha iyo telefishinada wanaag badan dad u heelan dadkooda ogol dad israba dadka haddaan loo tagin waa la isaga warramaya waxa kaliya Soomaali daawo ah waa inay isu timaadaan wada hadasha aan wada hadalno waa aan heshiino waxa daliil ugu filan Soomaalidu meelaha qaybtooda inay weli ka dhiman tahay kulankeenii ugu dambeeyay ee aan gaalkacyo ku yeelanay anaga iyo dawladda Galmudug isbuuc ka hor howlo badan oo Galmudug laga waday waxa lagu guuleystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la furo dadka Soomaaliyeed haddii runtii isku sheegin wax ka xun oo been isku sheegayaan mararka qaybtood waxa moodaa waayadan dambe in dadka la marin habaabinayo waxaan aaminsanahay Soomaali waa kala shakisantaa wili waa xaqiiqo jirta waxa kaliya ku xalin kartana waa inay aqbasho inay wada hadlaan oo isxaliyaan oo hore u socdaan
uusan been isu sheegin siyaasaddan la iska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo dalkeenna waa ku filannahay dadkiisu dalkeenna waa ka badan yahay deegaanadeennu nolosha hadda ay ku nool yihiin waxay nagu noqonaysaa dembi waad og tihiin dalkii meelo yaryar baa ka iftiimaya dalkii dibadhac weyn baa ka jira dadkiisii adeegyadii aasaasigaa ma haystaan noloshii aasaasiga ahayd ay ahayd tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo xataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan mas-uuliyad weyn baana saaran waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo dee hawsha waaba lala qabanaya waa sahlanta haddii madaxda inta hadda uu madaxweyne qoorqoor gartay markii uu talada ku guulaystay war tartankii waa dhammaaday kaalay aan wax wada qabsanno intaa hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagii muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaa la galo haddee hadalka fiicanoo ayaantan waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya wakhtiga mana la kala badinayo runtii ninba ninbu dabada haysanaya marka waxaan qabaa inaan hore eegno een dib aanan eegin waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo shir taariikhi ah waxaan rajaynaynaa in uu najixiddiisu uusan ahayn shirkan iyo waxa ka soo baxee najixintiisu ay tahay dadka Soomaaliyeed ay siday u qaataan waxaan aad u rajaynayaa dhammaan madaxda dawladda federaalka oo halka fariin uga dilayaa shirkan waa shaqo madaxda dawladda federaalka loo qabanayo waa dawladihiinnii aad madaxda u ahaydeen waa dalkiinnii dadkii mas-uulkeeniga ahaa waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa howlo ay rabaan inay inii fududeeyaan sidii dalka uu horey ugu socon lahaa waxaan ku rajo weynahay in dalku doorasho wakhtigeeda ka dhacdo si nabada ku dhacdo natiijo lagu wada faraxsan yahay oo lagu qanacsan yahay ay ka soo baxdo dalkuna uu marxalad labaad ugu gudbo midda quruxda badan ee qof iyo codka ah waynu gaari doonnaa haddii ilaahay idan ka dhigo laakiin maanta ma bilna mar haddaysan bilnayn wixii aan ka badin weyna aan ka tashanno aana aqbalno wixii aa haysatid baa la iimaansadaayo wixii aan kari karno aan iimaansanno hadba inta aan kari karno waxaan ku rajo weynahay ambishanka badan oo runtii sida caalamku nala jecel yahay waa tixgelinaynaa laakiin tabarteenna aan guuraynaa haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan beesha caalamka aan halka runtii uga dirayaa baaq oon ugu mahad celinayo muddadii dheerayd siday dadka Soomaaliyeed u garab taagnaayeen siday qayb ugu ahaayeen siday dadka Soomaaliyeed cagooda ugu istaagi lahaayeen taageerada joogtada ah waan uga mahad celinaynaa sidoo kaleetana waxaan aad u rajaynaynaa annagaa ka xog ogaalsana wixii aan ka badin weyno inay nagula qancaan oo inagu garab siiyaan waxaa mararka qaarkood siyaasadda Soomaaliya wareeriya dana kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo aan dadka Soomaaliyeed kaliya ku koobnayn ee dana dhinacyo kale ka yimaado waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay walaalahooda iyo saaxiibadooda waxay tarayaan ay yaqaanaan waxa iyaga ay kala mudan yihiin oo istarayaan ay u caddahay waxaan runtii jeclahay inaan baaq kaleeto u diro dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan filashada ballaaran ee galmudug laga filayo galmudug waxa laga filayo ninkii galmudug yaqaan uu yaqaanaa waa dad wax walba kara wixii hore ay sameeyeenna wax fiicanna waa karaan hadda waana ka sugaynaa insha Allah aad baan ugu kalsoonahay kartida iyo dadaalka markii hadda shirka la qabanaya waxa la lahaa war dhowr maalmood ma ku qaban karaan galmudug waxa ay dhowr maalmood oo ku badan tahay geelna ku filan waana muuqataa maanta ka badan oo wanaagsan inay qabtaan aad baa u madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha
dowladda Puntland waad ku mahadsan tahay khudbadaada iyo sida aad u xustay waxyaabo badan oo muhiim u ah shirka iyo gaar ahaan sida aad u xustay horumarka galmudug ay ku talaabsatay muddada gaaban iyo kabtan dhablaha maartay aad ku dhex tuurtayba waxaan jecelahay markaan soo dhaweeyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waa mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xogo sacabka la yareeyo markii la qudbaynayo yuusan hadalka naga dhumin bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuri dunya wadiin sala allahu calayhi wasalam madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed islaam madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddoonka baarlamaanka federaalka labadiisa aqal wafuuddii kala duwanayd ee madaxweynayaasha la socotay madaxdii hore iyo wasiiradii hore iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenadii hore oo inta joogo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore axmed cabdisalaan iyo wasiiradii hore oo wasiirka arrimaha dibadda oo hadda noo xiriirinhayo shirka iyo wasiirro kale oo hore siyaasiyiinta ururada bulshada iyo cid kasta oo shirkan ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii furitaanka shirka iyo ujeeddada shirka madaxweynihii martida loo ahaabaa noo sheegay marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan halkan mahadcelin iyo bogaadin aan uga diro dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug sida quruxda badan oo soo dhoweynta leh oo soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh nagula soo dhoweeyey aan uga mahad celiyo aad iyo aad baa loo dadaalay aadaan ugu mahadsantihiin waxaan bogaadinayaa shaqada fiican maamulkan cusub oo curdunka ah uu wado uu u istaagay inuu galmudug uu meel fiican ay gaarto dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan ayadana waa bogaadinayaa bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer aan oo muhiimadda uu leeyahay shirkan wuxuu muhiim u yahay waa shir wada tashi ah oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku tashanayaan waa shir ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlaayo maslaxadeeda horumarkeeda isdhexgalkeeda siyaasaddeeda amnigeeda iyo dhaqaalaheeda waa shir loogu talagalay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay soomaaliya maraysa iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas-uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan arrimaha amniga laga hadlo siyaasadda laga hadlo dhaqaalaha laga hadlo arrimaha bulshada laga hadlo doorashada laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taallo oo kala guurka ah sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo waa wax mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed oo dhan ku xihan
waa wax dowladda federaalka ah aan xubnaha ka nahay oo dowladdaannada ah dan u ah ayna ku faraxsan tahay ay og tahay waxa aan ka shaqaynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo oggolaa oo ahayd in la sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay samaystaan wadatashi iyo wada shaqayn iyo isdhexgal iyadoo mid guud ay jirto haddana sida uu madaxweyne saciid u sheegay waxaa jiro si gaar ah iyo xaduudo iyo derisyo iyo maxay ahaydee si la leeyahay annaga dowlad ahaan dowlad koonfur galbeed waxaan deris leenahay deris weyn baan leenahay xaduud dheer wuxuu nagala dhexeeyaa dowladda jubbaland mid kaleoo ka sii dheer asagana saasoo kale ah hirshabeelle mid kale gobolka banaadir intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysanno iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka soomaaliyeed dhibaatada saamaysay oo shabaabka ah oo loo heli lahaa amni ay dowladahaas kulligood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo ganacsi iyo isdhexgal fiicanna loo heli lahaa bilow fiicanaan ka samaynay 6 bilood ka hor waxaa ilaahay noo suurtageliyey inaan anaga iyo dowladda hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno guulna uu ku dhammaaday oon iska kaashanayna arrimaha amniga iyo deris wanaagga iyo ganacsiga si fiican buuna noogu soo dhammaaday inta kalena waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in iskaashigaas aan samayno markii aan intaas ka soo gudbo runtii maanta marxaladda ay soomaaliya marayso waxaa weeye nin kasta oo soomaali ah soomaalida waxay aad ugu faraxsan tahay oo heshiis ku tahay oo hanaqaadkii dowladnimada ku dhiirigeliyey in wakhtiga doorashada markii la gaaro uu wakhtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo soomaali ah wuxuu raba ha ahaado xilkuu raba ha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walbaba wuxuu leeyahay wakhtigaaba iska gaaban 4 sana dhammaanaysa waa sugaa marka nin kastoo soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay 4 sana markay dhammaato inuu u diyaar garoobo ninkuu bedeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaaba waa wax standard ahoo soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dowladda maanta joogto marxaladihii dowladda qori isku dhiibka ahaa shaqo aad u fiican iyo horumar la taaban karo oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba anfacayo yay ka shaqaysay waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in haddana aan ka wada shaqayno sidii ay ku dhici lahayd dadka soomaaliyeed cabsida ku jirto iyo baqdintan mar walbaba iska taagan oo u taagan markii marxaladdan la soo gaaro kala guurka ah nin kastoo soomaali ah iyadoo aanan weli aan la gaarin yaa waxaa jira dareen baqdin ah waxa yeelayana waxaa weeye dhibaatadii tirada badnayd oo la soo maray marka nin walbaba wuxuu leeyahay haddii aysan saas u dhicin dhibaatadii baa lagu soo noqonaya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan wixii afka uu bartay oo la dhihi jiray god baa lagu dhacayaa inaysan jirin godna horey looguma dhicin haddana laguma dhici doono insha allaahu doorashaa dhici doonto sidii caadada ahayd bay u dhici doontaa doorasho dadka soomaaliyeed oo dhan ay heshiis ku yihiin oo sida ay madaxda dowladda sheegtay golaha wasiirada ay ku baaqeen madaxweynahana uu soo dhoweeyey oo uu ku taageeray weeye doorashada aan rabno oo dhici doonto insha allahu hadduu ilaaha yidhaaho doorasho dadka soomaaliya oo dhanna ay heshiis ku yihiin yaan rajaynaynaa waxaan kaloo rabnaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in aan laysku xirnaado oo la wada shaqeeyo oo la abuuro jawi nabadeed oo iskaashi iyo wada shaqayn isla markaasna
sidaasoo kale dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ahna ay saasoo kale wada shaqayn iyo isku xirnaan iyo midnimo tan hadda jirta ka sii fiican ay sii jirto yay ka mid tahay shirkan aan isugu imaanay insha Allah waxaan rajaynayaa shirka inuu intaan ka sii ballaaran doono dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynayaa rabitaankooda iyo shacabka aan mas'uulka ka nahay waxa ay ka fikirayaan iyo sida ay wax u rabaan inaan ka shaqayn doono in aan maxay ahaydey wax Soomaali ay isku og tahay oo ku faraxsan tahay oo aanan walaac iyo baqdin ku jirin in uu shirkan uu ku soo dhamaan doono hadduu Ilaahay yaraaho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa wafuudii kala duwaneed iyo madaxweynayaalkii shirkan nagala soo qayb galay iyo dawladdii galmudug aad iyo aad u mahadsantiin wixii kaftan ahaa oo aan aadka u jeclaa waxaa sheegay Saciid aniga naftarkeyga waxaan aad ugu faraxsanahay cabdi qaybdiid uu hubyo iyo isu maraayo gaalkacyo oo halkaas ka shaqeynayo oo uu federaalka uu aad ugu faraxsan yahay oo meeshii laga rabay federaalkii uu gaaray waxaa la yidhaahaa markii Soomaaliya xornimada ay qaadanaysay ka hor intaan xornimada la qaadanin annaga waxaan ahayn dadkii u dacwoonay federaal Soomaali ma gaarin meeshaas Saciid iyo markaas dadka noogu ilbaxsan bay ahaayeen federaal ma aysan rabin laakiin 10 sano ka hor 60kii yaa odayaashii siyaasiyiintaanadii iyo waalidiintaanadii waxay u dacwoonayeen oo lahaayeen si Soomaaliya dawladnimo rasmi ah looga helo hala daadajiyo dawladnimada systemkan federaalka aan qaadano si aanan la isu dulminin oo cuqdadan aynu u dhalanin waxaan qabaa haddii maalintii ayada ahayd talada la yeeli lahaa shakigan iyo baqdintan iyo waxaan shalay la qaaday iyo magaaladan isla joogo xal fiican baa yaa imaan lahaa haddana waxaa muuqato in la dabaqay u baahan tahay laakiin in federaalkii dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faraxsan yihiin in system federaal ah qaadano maamulka iyo dawladnimada hoos loo daadajiyo talada ay tala hoos ka soo bilaabatay ay noqoto ilaa iyo meesha ugu koreysay ay gaarto arrinan aad ugu faraxsanahay weeye waana la dhameystiri doonaa hadduu Ilaahay yaraahay insha Allah oo dadka Soomaalida markii laga reebo in la yiraahdo federaal aan nahay waxay u baahan tahay federalismka naftirkiisa barasho kale dawladihii dadkan waxa lagu soo koray centralismka marka ayada naftirkeedana way qaangaari doontaa waa la baran doonaa haddii la aaminay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan idin rajaynayaa guul dadka reer galmudug shirkaana waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo wax dadka Soomaaliyeed ka farxad geliyo waana waxaan u nimid salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane lafta gareen cabdicasiis xasan maxamed in uu yahay dal burburay iyo dawlad kala tagtay iyo shacab maaragtay shaki kala qaba in qaybta loo dhiso la isu soo celiyo oo isu soo celin ay tahay aanay ahayn kala fogeyn marka waxaan jecelahay markan shirkan sida aad ka warqabtaanba maanta indhaha dadka Soomaalidu wuxuu hayaa shirkan Dhuusamareeb iyo wax looga hadlayo iyo waxa ka soo bixi doona madaxweynayaasha dhan culayska saaran focuskaana saaran laakiin madaxweyne si gooni loo fiirinayo waa madaxweynaha Jubbaland waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan in uu halkan ka jeediyo khudbadiisa ku soo dhaweeyo madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحوينها مرتدى اللو يهي قلمدو أحمد غورغور صاحب بضا إذا كلا وذا سعنا مرتدى وآي ساقا مدحوينياشا كونفور قلبين بنتلان يهر شبالة madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa dhammaan reer galmudug baarlamaan iyo wasiirre iyo shacabba iyo inta kale ee martida ah ee la socotay madaxweynayaasha madaxda xildhibaanada ka socda labada aqal ee dowladda federaalka ah bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo madaxweyne axmed qoorqoor iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo reer galmudug sida aad iyo aad xushmadda iyo ixtiraamka u lahayd ee u soo dhoweeyeen wufuuddii u timid iyo nooca qabanqaabada shirkan oo aan isleeyahay iyadoo lalahaa war galmudug sidoo ay saaxiibaday sheegayeen wakhtiga aanu qabannay oo layidhi 7dii bisha 8 aan shirka qabanno madaxweynuhuna uu safar markaa ku jiray ma qabsoomi karaan iyo ma iman karaan ay u qaateen inay wakhtigaas qaabtaan iyo qof kastoo imanayo waftiyada ka mid ahay waxa uu filayay waxaan ahayn ee uu la soo kulmay waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo aan idhaahdana galmudug maanta waxay ku taagan tahay waddo fiican dadnimo hore ku jirtay bay la soo wada baxeen maantana waxay ka muuqataa dhuusamareeb iyo reer galmudug soo dhoweynta marka laga soo taga haddana sida ay u diyaarsan yihiin iyo dowladnimada ay raadinayaan iyo qabanqaabada ay isugu wada yimaadeen ma koobi karo laakiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihi intaa marka laga soo tago shirkaani muhiimadda uu lahaa waxaa ka hadlay saaxiibka martida loo yahay iyadoo aan filayo in mar walba yuusuf garaadna uu halkiisa dhaan wada ku darsanayay inuu yahay shir maanta qof waliba uu soo fiirinayo waxa laga filayaana uu yahay wax ay keentay xaaladda lagu jiraay inay sababtay filitaanka shirkan wax laga filayaay mid wakhtiga ku xigan inuu yahay taariikhda ay Soomaaliya soo martay isma weydiinayno marxaladaha soo martay ee kala duwanaa laakiin waxa hadda inoogu muhiimsan burburkii kadib Soomaaliya inay qaaday tallaabooyin hore loo qaadayo oo dawladnimada lagu soo ururinayay laga soo bilaabo Carta Bagaasi doorashadii 2012 Muqdisho 2016 Muqdisho marka lagu daro intii Djibouti isku darkii faraha badnaa Soomaalidu ididiilo iyo amaal muujinaysay sida ay Soomaalidu ugu baahan tahay bal inay ka guurto dhibaatadii iyo caqabadihii la filayay oo nooc dawladnimo ay u guuraani inay ahayd midda marxaladaha keenaysay oo damac siyaasadeed ku jiro uu ka fakaraya aleelehe hebel baa qaatay hadduu qaatay u daa afarta sanaan isdiyaarinayaan waxaa lagu gaadhay inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wadatashi isla ogolaansho iyo dadku inay markaa waxay isla ogyihiin ay ku meel marayaan ay gaadhaan waxaa hubaal ah oo meel looga wareega aan lahayn guddiga doorashooyinka ee maanta jira markii la dhisayey iyo markii ka horraysayba waxaa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaadho waa hamiga qofka Soomaaliyeed oo qof waliba ku fakarayo doorasho noocaas inay dhacdo haddana mar walba waxaa waaqica runta sheegayay wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeenu uu ku jiro oo u baahan inta taa la gaarayo wax badan oo hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayd looma fadhiisanayo markaa oo lama odhanayo waan gaari weynay sidan aan yeelay haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxayn karaa xagtaa sidii lagu badbaadin karayo ama see xeegana loo xagtaa ka nabad galaano
mar walba haddana isbeddelkii iyo damcii iyo amaashii inay socoto inay tahay midda dowladnimada Soomaaliya aasaaska u lahayd 2016 markii laga hadlayay waxaa aad culayska loo saarayay inay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod oo ogeydeen National Leaders Forumkii iyo talaabooyinka uu qaadayo wixii la sameeyay haddana way socon kari weyday oo waqtiga lagu jiray wadanka iyo xaaladii adkeyd waxay keentay inay taasi socon weyday waxaan rajaynayaa markaa ama maanta shirkan muhiimadda iyo u sii keentay waxay ahayd arrinta doorashooyinka soo socda ee 2021-2022 dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof waliba uu markaa ta'wiilka uu doono uu siinayay taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkan asal uu yahay in la wada tashado dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan systemka federaalka wadanka iyo iyaga gaarkooba ka tashada waxaa kaloo wehelisa dowladda federaalka mas'uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga ee la gaarayay inay noqdaan mid laga wada tashado la isu yimaado la isla qaato meesha ay la isleeyahay way gaari kartaa dadka Soomaaliyeed marka waayeel waxaa la yidhi hortiisa caano loogu barxaa haddii reerku ay caano yareeyaan ay gaari waayaan oo la yidhaahdo ha loogu daro biyaha lagu daro qofka waayeelkii uu garanaya caanahan in wax lagu daray laakiin qofka ilmaha yari inay cad yihiin buu arkaa waxaa laga yaabaa inuunan aad u sii garanin marka qofka waayeelka isagoo arka yaa lagu darayaa si uu ogaado in baraxii ku jiro dadku markaa shayga muhiimkii waxay tahay wax ay qaadayaan iyo tallaabaday qaadayaan haddii barax lagu daray iyo haddii sidooda lagu bixinayaba inay noqoto mid u wada muuqata oo ay wada arkaan oo markaas aan keeni karaynin tuun iyo istuun iyo midna aan abuuri karayn waxaan rajaynayaa shirkan muhiimadiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmiya oo doorashooyinka iyo siyaasadda iyo wax walba iyo wax dowlad goboleedyada ka dhaxeeya intaba saameyn ku yeelan doona malaha iyaga dowlad goboleedyadu go'aanka gaarista arrimo badan oo wadanka u yaala laakiin waxay leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dowladda federaalka mas'uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonin ayna u ahayn ayna doonaynin iyagu shaqo ayna iyagu lahayn inay qabtaan ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda taasina ay wadanka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karayso waxaa u baahan maanta culaysyadana saaran wadanku inuu hore uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaalay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayay maantana taala dastuurku uu ka mid yahay dhammaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada in la fuliyo heshiisyadii hore loo soo gaadhay London Conference Muqdisho Baydhaba iyo qorshihii amniga qaranka waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkoodu inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla waxaa lumaya oo baadayo kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay waqtiyadaas qabsoomaan ama la iska weydiiyo waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badan oo hore loo soo gaadhay fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxa halkaasay marayeen xaggee inoo marayeen maxaa ka qabsoomay maxay sababtu ay tahay waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka wada shaqayso kulligeed waddankaani maanta midnimada iyo gacanta la isqabsaday isku duubnidu galmudug waa tusaale idinku filan galmudug yaa tusaale idinku filan madaxweynaha senatarada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa maamulkiisaba intay gacmaha isqabsadeen wareegga ay sameeyeen iyo maanta halkay shalay ka bilaabeen iyo maanta isku duubnida maanta ku shalay wax sheeganaya iyo mid kaleba maanta reer galmudug halkay isla gaadheen aan kulligeen gacmaha isqabsanno isku duubnaanno ninka dowladda federaalka joogay maanta wuxuu mudan yahay in lagu ixtiraamo shaqada uu hayo isaguna uu garto cidda talada leh iyo waxa ka dhaxeeya ka maanta bannaanka ka joogaana uu garto maanta ninka mas'uuliyadda federaalka joogay xilka saaran iyo culayska uu ogaado isaguna
berri hadduu kursigaas tago si ay ugu sahlanaato inuu shaqadaa lala qabto inuu isaguna isku dayo qofka walaalkii ee markaa shaqada ku jira inuu wax la qabto oo uu la saxo oo uu gacanta la isku duubto ma aha federaalka keliya ibanta isteydyada oo ay ahayd maamulada ilaa heer council iyo saddexda leebal ee dowladnimo in loo dhowaado oo mid heer councilkii iyo degmooyinkii iyo tii dhexe ee stateka iyo dowladdii dhexe ee sare ee waddankuu lahaa inay intoo noqdaan wax isku xidhan oo ay tahay waxa inugu keenay federaalkan iyo culayskan inaan hadda dowladnimadeenni dib u soo aduudno dagaalkii sukeeye iyo burburkii iyo kala tegistii balin intii isqaadan karta iyo sida dastuurka u soo qorayba sidaa loo socdo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa saaxiibbaday inuuna shirkaan noqonin kii ugu dambeeyey ee shirar badan aan yeelanno la isku xidhnaado la wada shaqeeyo waxa ka soo baxayana ay noqoto shirkani gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan inaan wax cad oo aan iska weydiinno annaga iyo dowladda federaalka iyo cidda naga dhaxaysaba talada naga dhaxayn karta la isweydiiyo oo la isla qaato waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo oo qof kasta oo siyaasi uu maanta aad uga fakaraya ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof kastoo caaqiloo siyaasi ha noqdeene qof waliba inuu ka fakero oo ka shaqeeyo isku haynta waddankan xasiloonidiisa sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaata waddankan uga dhici lahayd qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sida ugu habboon ee loo gaari karayo waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa shirkaani inuu dhali doono kuwo kale oo ku xiga oo ka fiican oo iyaguna kulli ay isla soo wada saaraan kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba wax maanta dadku ay ku qancayaan oo u muuqata oo aragti siyaasadeed keenaysa oo walaaca iyo tuhumka dadka ku jiraay ay uga baxaan reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa gacmahaad saysataan wada waxaan aad uga warqabaa reer galmudug waa deeqsiyo horta hadda sooriyada iyo geela la uruurinayo iyo xoolaha la keenayo waxaan u malay inaan diyaaradaha ku qaadan doono oo ay ka badan doonto intaan joogno waxaan isticmaali lahayn bal wixii lagu qaadi lahaana aan ka sii fakaro oo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay mudane madaxweyne axmed maxamed islaan si qurux badan ayaad uga dabaalatay waxaan jecelahay inaan xuso oonan markii hore joogitaankooda xusin bogaadiyana xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore galmudug jenaraal cabdi qaybdiid in aan xuso oo aan soo dhoweeyey waad mahadsantihiin waxaan jecelahay markan khudbadda madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane maxamed cabdi waare hirshabelle oo aniga ah meel ii gaara maadaama farta hadda dadku waxay u ammaanaan wax qoridda waxyaabahaas meeshan ku farbartay waa buulo burtaaniga marka madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane maxamed cabdi waare ku soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة aanu nahay dhammaan madaxweynayaasha kale baarlamaanka iyo labada gole ee labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokoolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horeeyo madaxweyne qorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekayn karaa wanaagga aan halkan ku aragnay laakiin waxaa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga
iyo isla shaqaynta iyo isindha buuxintu waxay dhali karaan waddan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horeeya hal shay waxaa ka horeeya horta waddanka in loo laxa jecloodo waxaa muuqata oo aan markhaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jecloodeen waddankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkaan isugu keeneen hogaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitiskiisa iyanu intaasoo dada iyo intaasoo horumar isku hayeen bogaadin gaar ah ayaan madaxweyne kaaga bogaadinayaa waxa kale oo rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Madoobe oo runtii sidii doorashadiisa ay u dhacday aanan golayaashan maba dhicin laakiin aan ka soo qayb gelin asagana waxaan ku leenahay ka soo qayb gal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhawow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan 3 qodob kaliya aan dul istaago shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanaayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabiray madaxweynayaashii iga horreeyay qodobka ugu horeeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxa halkaan aan isugu nimid oo isugu keenay waa dastuur dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii waddankaanu galay kala aanbixii kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan hala geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dokumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay ayadoo family isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yiraahdaan aabbow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimadaas uu leeyahay waxa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxa waaye ilaa laga ansaxiyo umbuu draft yahay ma ahee Soomaaliya waxay isdhihi lahayd waystri Djibouti laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa hadda muxuu ahaa senator Cabdi Qaydiid iyo tiimkooda waxay Soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax aqliya oo naga maqan oo banaanka naga jira huma jiraan waxa la yiraahdaa wuu iska hor imaana dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xiran tahay in ilna xariis lagu fiiriyo in niyad waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna hadda hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxa ka mid ah sida loo sheegay systemkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto halka aan ku taagsanahay waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansano oon wanaagsano ayay taladeenu ku jirtaa
sida dad badan oo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray dad baan wax u qaybin jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudeeday ku soconaysaa laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhex yaacayaan waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaho waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno haddaan dastuurka u hoggaansanno qorrax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanan isnacayn wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan arrinka labaad doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen adduunyada sideedaba laba doorasho ka jirto waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka musharaxiinta ah tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dawladda kaliya la leeyahay xoogaa dawladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin kaliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhig u ah waxa saldhig u ah in lagu heshiiyo labaatankii sano la soo dhaafay wadamada nooceena oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan oo ay ka mid tahay Liberia oo ay ka mid tahay Sierra Leone oo ay ka mid tahay Congo oo ay ka mid tahay East Timor waxay doorashadoodu ku dhacday heshiiskaas oo ah inay 4 kooxood ka heshiiso marka la leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno laakiin inay talada heshiis ka yihiin koow cidda taladu gacanta ugu jirto sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii imkaaniyaadkii awooddii amnigii waa loo baahan yahay ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas ayaguna markooda soo fuulaan waxba kama duwana marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo hadduu gooni qolo ula hadlo qolo kalena gooni ula hadlo dadkii shacabkii fiirsanayay way waswaasayaan waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin waxa kaloo laga maarmaana shacabkuna inuu raali ka yahay oo wakaaladooda ha ahaadaan odayaasha dhaqanka ha ahaadaan culummada ha ahaadaan haweenka ha ahaadaan muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakkiriinta oo fikira waa inay waxa socda ayaguna raali ka yihiin ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waaye maxaa waaye sababtu annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya United Nations ka kamida ururka carabta kamida kan islaamka kamida igada kamida dhammaan ururadaas waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno qabanaya sidaas daraadeed ma rabno inaan sameeyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaaganahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayay dhammaan madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn tusaale ahaan waa farsamo
oo loo sameeyey inay farsamada doorashooyinka ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 ana kugu baxaysa اختيارka inaad aqbasho inaad diiddo adaa iska leh fuundigu xaq kuugu male inuu kaala murmo cariishan ku dhisaa dhagaxan ku dhisaa shaqadaas asagu male guddigaas hawshiisii waa qabsaday yaan la dhibin xalimayare dhibka ha laga daayo talada annaga tashanayna maalinkii tala naga soo baxdo haddana ayagaan ku celinaynaa ama kii bedelaan ku celinaynaa sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xigxigto ama la iska shakiyo waa gardarro qodobka ee ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeena iyo qaab darradeena labaduba ay ka muuqdaan in dadka xamarne arintaas waswaas badan nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabtii maxaa soo xarooda war bari nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute ka la iskugu yimaado waa nasiib darro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii waxa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashano maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashano ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in iyaga lagu wareejiyay ahayd waxba laga mitixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas dawladdii markay soo burburtay salaam calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladda la dhisay waa ka warqabtiin wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka ma goosanayso laakiin waxa ka suurtagal ah idii sheegi waxa ka suurtagal inay dhahaan Soomaaliyay cashuur noqotaya iyo amri darro noqotaya iyo culays noqotaya 60 sanaan caasimadnimada soo haynay culayska laga qaado meel kale hal la geeyo waxa ka suurtagal inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa iya ka suurtagal waxa ka suurtagal in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arinta Banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca qolada ciyaarta maxay dhan injury time in mar walba injury time ka la iska warsado
arrintaas waxa laga bedelo caasimadaas waa wada leenahay aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahanee maqaam aan ugu raadinno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsan tahay madaxweyne waad mahadsan tahay madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne maxamed cabdi waare waxaan jeclahay intaanan gunaanadka u gelin oo madaxweyne qorqor uu noo soo gunaanay doono goordhow in aan in yaroo khulaaso ahaan ka taabto shakiga iyo waxyaabaha badinta dadka qaar ay ka qabeen ama shirkan ku gadaannaa marka khudbadaha hadda la fiiriyo madaxweynayaasha kelmadaan ka soo qabtay waxa weeye madaxweyne qorqor uu horreeyey wuxuu yidhi talada keligan ma lihin waxaan rabaa inaan xuso in madaxweyne siciid deni uu yidhi shirkan waa shaqo loo qabanayo dowladda federaalka waxaan rabaa inaan xuso madaxweyne axmed maxamed islaan shirkan wuxuu asal u yahay in la wada tashado dowlad goboleedyaduna go'aan ka gaaris ma laha ee talo ay ka bixinayaan inta ay iyagu xaq u leeyihiin madaxweyne waare wuxuu sheegay in dastuurka loo wada hoggaansanaado waxaan ugu daba mariyey madaxweyne lafta gareen sababtoo ah dad badanoo hawada nagala socda hadalkaas way danaynayaan waxaan rajaynayaa uu yidhi shirka in ay ka soo baxaan waxa ay soomaali ku faraxdo marka waxaan rajaynayaa in commitmentigaas la bixiyey oo hawada lagu bixiyey laga dhabayn doono madaxweyne qorqoor madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaan gunaanadka siinayaa khudbadda بسم الله madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka saaxiibadaya dhammaan golayaasha martida sharafta magac kastoo lagu joogo mar labaad iyo mar walba waa idiin mahad celinayaa sida looga soo qayb galay shirkan furitaankiisa uu muhiimka u ahaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan mahad celinaynaa dhammaan inta aqbashay inta gacan ka geysatay inta u diyaar ah inuu guulaysto waa la soo wada shaqeeyey inta hadda aan ku leenahay ayaana talada ururi doonaa qaybaha kale oo u muhiimka u maqanna waxaan ku kalsoonahay inay waqtigooda kaalintoodii ka qaadan doonaan shirkuna uu guul ku dhammaan doono insha Allah waa mahad celinaynaa dhammaan dhinacyada oo dhan ummadda Soomaaliyeed taageeradii iyo isgarabtaagii guud ahaan ay shirkan iyo kulankan wada tashiga ah gacan nagu siiyeen meel kasta ay joogaan waa ugu mahad celinaynaa waxaan ugu baaqaynaa inay sidaas si mid ah oo khayr loo rajaynayo iyo midnimo ay u garab taagnaadaan haddii Allah awood la ogolaado sidoo kale waxaan mahad celinaynaa beesha caalamka taageeradii ay Soomaali la garab taagnaayeen waxaan haddana ugu baaqaynaa kana codsanaynaa inay taageeraan waqtiga lagu jiro oo waqti runtii taageero badan loo baahan yahay ah isgarab taagaan waan rajaynaynaa iyadoo waliba aan isleenahay taageeradaasina waxay la socotaa waqtiga iyo sida uu yahay mar labaad iyo mar saddexaad dhinacyada oo dhan baan u mahad celinaynaa ka soo qayb galay shirka waa noo furan yahay fayskan koobaad furitaankana intaas ayuu nagu egyahay waxaa socod doona shaqooyin goonigooniya iyo guddiyo iyo farsamooyin wuxuuna weji labaad yeelan doonaa waqtiga soo socda insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin shirkuna waa noo xiran yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
madaxweyne waad ku mahadsan tahay waxaan jecelahay in aan idinla socodsiiyey in dhowaan la daari doono hees la yidhi waxa lagu soo dhaweynaya madaxda kadibna waxaad noo xigaysaa inta hoosta socotay in aan baxno iyadoo saxaafadan marka hore fasixi doono madaxda soogutin doono kadibna intaan kale insha allahu tacaala aan ku xigi doono marka ku soo dhawaada heestaas salaam marka hore mugwey gudnaan iyo soo dhawey madaxdii soomaaliyeed galmudug marti kuma tihiin madaxdii soomaaliyeed galmudug marti kuma tihiin dadaan kala maarmiyo marmiyo mataana quraynahay salaam marka hore mugwey gudnaan iyo soo dhawey madaxdii soomaaliyeed galmudug marti kuma tihiin madaxdii soomaaliyeed marti kuma tihiin galmudug madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn walaalaha maanta yimi masiirka dadkooda iyo midnimo dhamuq la wadee madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn walaalaha maanta yimi masiirka dadkooda iyo midnimo dhamuq la wadee allowkii midha dhale shirkani lamahaadiyo nooga yee